بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogto. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaan kadib maanta waxaan u soo fadhiistay miidiyaha anigoo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga wadani ee dalweynaha Germany inaan gebi ahaanba iska casilay xisbigii wadani gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga wadani ee Germany xubinnimadii xisbiga wadani ee laanta Germany intaba inaan iska casilay maanta ay taariikhdu tahay 24 August 2017 sababahan isaga casilay haddii aan halkan wax ka yar taataabto marka hore horta xisbiga wadani waxaan ku soo biiray anigoo saluug badan ka muujiyay siyaasad xumadii xisbiga kulmiye amba xisbul xaakimka ayaa waxaan isii xisbiga bedeli karay maanta dalka lagu badbaadin karaa waa xisbiga wadani maanta waxaan arkay wadani laftiisu inaan waxba kaga duwanayn oo wadadii kulmiyaan ku diidnay marayo oo gudoomiyey xisbigu aad moodo inaan waxba ka fulinahaynin isbedelkii aanu doonaynay iyo wadadii aanu u soconnay sidaa darteed markaan arkay inaanay waxba islaamin kii hore igu kalifayna xisbiyada ku biraanan xisbiyaba hore ugu jirin taageerid mooyee ee aan diiday maamulkiisa iyo sidoo wax u wado iyo kan inay isku wadahayaan waxaan maanta caddaynayaan mar labaad ku celinaya inaan iska casilay xisbiga wadani gebi ahaanba xubinnimadii iyo gudoomiye ku-xigeenkii guud ee laanta Germany-ba waxaan leeyahay oo halkan uga mahad celinayaa xubnihii aanu sida fiican u soo wada shaqaynay laanta wadani Germany ugu horeeyo gudoomiyaha iyaga Xasan Faarax Xirsi Xasan Mataan oo aan sharaf leh oo si qurux badan u soo wada shaqaynay hogaamin wanaagsan oo xisbiga laanta Germany ku waday waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa inay halkii ka sii wadaan laantii wadani Germany waxaan leeyahay in isu soo ducayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.